صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كيني داودا صونك وداو صونكو وحو داو يهي عقلك إيا مسكحة إيا عقيدة إيا شركة إيا حبنها ابن آدمك iyo bulshada ayuu daawo u yahay. maxaa yeelay soonku wuxuu keenaa daawo la helo midda ugu qiimaha badan oo ah alla ka cabsiga. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka baaburayaan geli doona ee soonka sababtiisa ku geli doona alla subxaanahu wa tacaala hanagu daro. ayuha alaxibatu fillaah, xalqadeennan waxaynu ku eegi doonaa soonka xukumkiisu muxuu yahay. guud ahaan soonka ama ramadaanku xukumkiisu muxuu yahay. ramadaanku waa farad waana waajib, waa fardu cayn. in bisha ramadaan qofkii awoodo inuu soomo waa waajib bay ku tahay. soonku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka oo qofka haddii uu inkiro oo yidhaahdo anigu soomi maayo, waajibna iguma aha, islaam ma ahaanayo. sidaa daraaddeed soonku waa farad waana waajib xukumkiisu. maxaa daliil u ah haddaba? waxaa daliil u ah qowlu rabbii jala sha'nuh yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat ila aakhiri alaaya. ilaahay wuxuu inoogu yeeray sifatu liimaan. kuwa iimaanka laga helayow waxaa la idinku waajibiyey soon, idinka iyo kuwa idinka horeeyeyba. waxaad mudan tihiin in haddii aad soontaan waajibkaana aada gudataan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsataan. xadiidkii cabdullaahi ibnu cumar isna daliil buu u yahay soonku inuu waajib yahay. nabiga wuxuu yihi salى اllahu calayhi wasalam buniya alislaamu calىa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إسلامك waxaa lagu dhisay shan tiir. waxaana ugu horeeya inuu qofku qiro caddeeyana in ilaah xaq lagu caabudo uusan jirin ila allah, ilaah ma ogiye. nebi maxamedna uu yahay rasuulkiisii uu soo dirsaday. waa rugniga koobaad. salaadana la oogo, zakadana la bixiyo, soonkana la soomo, maxalu shaahidkana waa kan, iyo in xajka la xajiyo oo guriga ilaah lasoo booqdo. maxalu shaahidku waxa weeye waa sawmi ramadaana man istataaca ilayhi sabiila. baa shardiyaa ku xidhanoo qofkii awoodo un weye. xadiidkuna waa muttafaqun calayhi. soonku inuu waajib yahay waa ijmaac. ajmacat ilumma, waxay ummaddu isku raacday, bahweynta muslimiintoo dhanna ay isku waafaqsan yihiin in soonku uu yahay waajib iyo in uu yahay arkaanta iyo tiirarka islaamka ee uu islaamkuba uu ku taagan yahay. wuxuuna ka mid yahay soonku maa culimat min addiini bidaruura. waxyaabaha daruuriyaadka ayaan u baahnayn cilmi badan iyo in kutub badan la akhristo. qof walba markuu soo islaamo waxaa loo sheegaa in uu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahina yidhaahdo, salaadana tukado, zakadana iska bixiyo hadduu xoolo haysto, bisha ramadaanna uu soomo, xajkana haddii uu awoodi karo uu tago. waxaan kaloon xalqadeennan ku eegi doonaa
bishii ramadaan in ay bilatay maxaa lagu ogaan karaa? waxaa lagu ogaan karaa laba arrimood. in bishii ramadaan la arko oo indhahaba la saaro, taasi waa midda koobaad. ama inaad adigu aragto ama qof kale oo caadil ah uu arko ayaa lagu ogaan karaa. haddii aan la arkin, adna maadan arag, qof kaloo looga qaateen ah nama uusan arkin, wuxuu kale oo ramadaanku uu waajib ku noqonayaa in bisha shacbaan 30keedii maalmood uu dhammaado. markaasi ramadaankii ayaa waajibaya oo in la soomo ayaa beri waajib noqonaysa. ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi faman shahida minkum الshahra falyasum. nabiguna wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam idaa ra'aytumuuhu, bisha haddaad aragtaan fasuumuu, sooma ayuu yidhi nabiga salى اllahu calayh wasalam. haddii aan la arkinna sidaan sheegnay, bisha shacbaan ayaa 30keeda beri la dhammaystirayaa sida axaadiista kale almuttafaqi calayhi ay caddaysay. waxaan kaloon xalqadeennan aynu oga hadli doonaa ayuha alaxibatu fillaah, arkaanta soonku. arkaanta soonku waa 2. sida uu islaamkaba uu 5 tiir u leeyahay, soonkuna 2 tiir buu leeyahay. tiirka koobaad waa anniya, waana in uu qofku u qasto cunto la-aantan iyo cabitaan la-aantan iyo waxyaabaha kale wax afuriya uu ka afhaysanayo in uu soon iyo ilaahay inuu u dhowaanayo inuu u qastiyo weeye. waxaa daliil waa inama alacmaalu binniyaat, acmaashu waa niyo, wainamaa likulli imri'in maa nawaa. marka qofku waa inuu niyeystaa. sida uu u niyeysanayana waa inuu markuu bisha ramadaan ay bilato inuu 30 maalmoodba inuu soomi doono inuu niyeysto oo hal mar ah. waxaa kaloo fiican inuu habeen walba uu niyeysto. waxaana daliil u ah qowlu rasuuli salى اllahu calayhi wasalam man lam yubayit الصiyaam qabla alfajri falaa siyaama lah. imaamu tirmidi ayaa fii sunanihi kusoo saaray xadiiskaas. qofka aan marka habeenkaasi niyo inuu beri soomi doono aan ku waaberiisanin, soon uma jira ayuu nabigu salى اllahu calayhi wasalam u leeyahay. rugniga labaad waxaa weeye alimsaaku can اlmuftiraat min طuluuci اlfajri الsaadiq ilى guruubi الshamsi, in laga afhaysto waxyaabaha wax afuriya oo ugu horeeyaan cuntada iyo cabitaanka, jimaaca iyo galmada, iyo waxyaabaha kale muftiraadka ah. xalaqooyinka soo socda ayaynu oga hadli doonaa waxyaabaha wax afuriya ee soonka buriya inuu qofku ka afhaysto min alfajri الsaadiq ilaa guruubi الshamsi. fajarka waaga markuu baryo oo salaada subax la tukanayo ilaa iyo inta qoraxdu ay ka dhacayso. ayuha alaxibatu fillaah, inta aynu oga kulmi doono xalqad kale oo aan middan ahayn, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام